oo wanaagsan saaxiibayaal waxay la fadhiyaa alfanaan youtuber Kin CK oo showgiisa iminka ma ay ka harsan yihiin wax ka yar 48 saacadood iyadoona kooda bisha lagu balasay inuu yahay habeenka CK iyo sidoo kale xidigaha Muqdisho oo ay qayb ka yihiin Kinarash iyo sidoo kale alfanaan Sharma Boy. haddaba CK maxaa ka cusub showgaaga run ahaantii showgayga waa runta u sheegtay waqti yar oo kooban ayaa ka dhiman intan ka hor way fiicneed in aan soo shaacino in meesha tigidhada laga helayo in macnaha video ahaan aan usoo fariisto oo janaalkayga aan soo fariisto waa rabay inaan sameeyo inkastoo haddana familkii oo intaa muddo aan kala maqnayn oo ay tahay inaan waqti sii aan ku mashquulay saas ay tahay tigidhada waxaa laga heli doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo hotel marxaba oo aan anigu deganahay iyo asxaabteyda oo ku yaala wadada dabka qaasatan Calow Tower qaybta moolka oo aad imaan doontaan iyo numberka uu wato saaxiibkay Abalinga oo aan Instagram-kayga soo dhigay oo aad soo wici doontaan halkaana tigidhada aad ka heli doontaan aad lambarkana shaashada ayaan idinku soo qori doonaa oo aad markaasi aad kala xiriiri doontaan fanaani showgaaga sidoo kale waxaa jirta inta badan baraha bulshada waxyaabo badan hadalhayn badan oo la hadalhayo ah in uu dadka baraha bulshada ay sheegayaan inuu saameyn uu ku yeesho kale qamar sugaani run ahaantii Najiibow horta waxna dadku way isbarbar dhigaan waxna waa wax aan macquul ahayn oo la isbarbar dhigi karin macnaha waxaan ka wadaa walaalkay qamar sugaani waa fanaan Soomaaliyeed halkan hore show ugu dhigtay haddana show uu ku dhigan karaa oo qof bini aadana oo maanta ka hor istaagayso haba yaraatay ma jirto dadka qaar ayaa waxay sameynayeen ayagoo saameyn ka raadinaya iyo in ay views ku helaan ayagoo isbarbar dhigay labada show oo waliba yiri CK wuxuu halkan u yimid in maaragtay qamar sugaani lagu xumeeyo iyo reer Muqdisho waa xun reer Muqdisho ayaa dad xun ah macnaha inta waxay ka guurayeen reer Muqdisho waa dad xun CK bay keeneen qamar sugaani baa lagu xumeynayay wax noocaas dad meel la soo fariistay oo views ku raadinaya waa aragnay balse arinta jirta qof kasta uu og yahay walaalkay qamar sugaani halkan markuu imanayay marka hore isagoo show soo shaaciyay muu iman sida maqlay wuxuu u yimid dana kale u gaar ah magaaladana waa magaaladiisii maanta iyo beri iyo maalin kale ayuu ku dhigan karaa show goor allaala goorta ay u noqoto horeyna siduu show ugu dhigay ana waxay cid kastaba og tahay oo social media ku xiran in muddo aan ku taamayo inaan Muqdisho imaado waliba bilihii u dambeeyay aan dhigi karo waliba bishan hadda aan ku jirno bilowgeedii in aan soo dhigay sawir aniga oo safar ah una soo socdo Soomaaliya meesha ahayd meeshan ku guulayay muhiimadeeda inaan Soomaaliya u soo socdo waxaan soo maray Kenya in music aan soo sameystaan ugu talagalay tourkeyga ilaa Muqdisho kaliya kuma eki Baydhabo Garowe Kismaayo maadaama inta isku sii marayo waxaan soo sameysanay music dhalinyarada ugu talagalay oo aan rabo in stage-ka ay ka soo baxaan badankooda hadduu Ilaahay raali ka noqdo ayadoo marka la wada og yahay in Muqdisho u soo socdo mar hore inaan sheegay bil ka horba oo sawirada aan soo dhigayay oo li wada sugayay inaan soo socdo lana sugayay meelo fara badan aan tagay oo showyi aan ku soo qabtay Malaysia Turkey Sweden Greek meelahaas oo dhan waxa la dhigi jiray Nairobi naftirkeeda aan show ku qabtay markii aan imaado warsiikay Nairobi waa timid maxaa noogu imaaladay Muqdisho oo waliba ay taageerayga aad iyo aad ugu fara badan yihiin dadka aniga ila socda ee daawada run ahaantii marka hadda waxaan dhihi karaaba waa riyadii aan ku riyoonay muddo fara badan in ay ii rumowdo run ahaantii walaalkay qamar sugaanina showgiisa waa la tagayaa horeyna show Muqdisho ugu qabsaday magaaladana waa magaaladiisii waxa ka dareemaysaa in magaaladiisa ay tahay horeyna show ugu qabsaday ayagoo muddo badan ka soo wareegina show ku qabsanaya waana la wada tagayaa waxaana jawaab siinayaa dadka ka dhigaya Muqdisho in ay tahay meel xun Muqdisho in ay tahay gub waxa ku cadeynaya qof kasta oo yimaada way soo dhaweysaa qof kasta oo halkan ka soo dega waa magaaladiisii qamar waa wiilkeena cid gaar ah oo qamar maanta xumeynaysa haba yaraataa ma jirto Muqdisho dhan baa u taagan showgiisana waa la tagayaa showyo kale oo ku qabsan doona xitaa waa la tagayaa marka waxaan dhigaa dadka raba inay soo caan baxaan oo run ahaantii mar kastaba ka raadiya meel yar in ay intay soo fariistaan attention ka raadiyaan ee dadka madaxa isku geliyaan ayagoo kaga gol leh bal magac ay yeelatid run ahaantii waxa wanaagsan haddii aad shacbiyad raadinaysid in aad samaysid dadaal
intaas waxaan u siinayaa keliya dadka aan youtube-ka uga soo horeeyey muddana aan ku jiro khibrad u leeyahay maadaama aad doonaysid in youtube aad magac ku yeelatid kan kaa horeeya ixtiraam ka kaa dambeeya imaanayana soo dhaweey adigana ha isku dayin inaa waxun kusoo cambaxda midda kale najiimow waa hadal badanaya kuu soo qatime soomaalida waxay baratay dislike si fiican soomaalidii aad iyo dislike bartay had goor xastaa dislike weerar badan mar jiray oo aad la isku baabiyay maba jiri doontaba hadda inta la isku soo fariisto aad iyo in CK intuu soo fariisto najib isaga dhow aad iyo commentiyo waxaa soo baxay runta la isugu sheegay dadaba joogaba abukaatiyaal oo difaac horta soomaalida arrintaas aad iyo aad ugu mahadcelinaya maadaama macnaha entertainment comment isku karbaashay war wallahi inaan qabiil xitaa lagu sacbinaynin haddii aad qof maala yacni ugu dhigto kuwa adiga dadka kugu dhawaa waxay ku dhahayaan waaryahay waa qaldan tahay ninkaas inaad dee runta aan kuu sheegnay meesha wax la imaw qofkaa ka dhamaaw waraada wax ma lagu sheegaa baadow yaa lagaa dareemin soomaalida in arrintaa ay fahmaan run ahaantii oo qofkii madadaalinaya ee u sacbiyaan kan isku dayayana in qof uu xagxagto ama uu ku dhogo inuu kusoo caanbaxayo oo hadda kusoo biiraya youtube ee runta u sheegayaan arrin wanaagsan waa xitaa aniga ay idaawanayaan CK family-ga aniga ugu xiran ay taageera haddii maanta najiib tusaale aan meel usoo fariisto ii foorariya aad iyo waa qalad weeyaan qof inuu qof kale soo ataago aad iyo aad inta badan ma fiicna heesta ka sameynaba heesta soo socota Sharma Boy hadda Sharma Boy heesta isla qaadayno heesta hadda soo socota CK ya samada ku socota ee ku jirtaaba suuqa waxa soo galay ciyaal caandoon sixan u doon haddana waxay dahaanba waa goon ya salaam ruwaay waxay isku dayayaan najiib oo qof wanaagsan inay qof ka dhigaan inuu qof xun laga dhigo waa sidaas aad iyo aad salaan CK aad soo qaban rabo in buuq lagu furo kala tusaale ahaan oo yiraahdo CK kan buu sameey kan buu yeelay sida buuq waa aragtay walaalkii markii aniga daba taagay daba joogeen dadkii ee dislike barteen ayaan meel intay soo fariistaan toos isoo geli karin ayay waxay sameeyeen TikTok aniga aan lahayn inay sameystaan ay caayaan dadka ay jecel dhahan CK family ayuu wax un ka sheegay macnaha anigi way qaban waayeen heer waxay gaareen dadka ay jecelaa in ay caayaan ee labadan isku soo kay jeediyaan si hadoo oo la yiraahdo CK qof heblo soo caay su'aalaha la CK oo soo weeraray heblo aad iyo aad CK marka ma jirta adiga TikTok si gaar ah u leedahay oo la leeyahay CK TikTok intaas uu leeyahay waa verified amaba intaas oo wuxuu leeyahay oo follow ah mobilkii TikTok ma digsano aywaana mali horay mar asxaabteeda way ugu sameeyeen waa lumiyay si fiican passwordkina waa iga lumay userkii mar daban mar forgadna maada dhimba userka aan ku isticmaalayana mid kale kuma samaysan kari oo hore ugu samaystay haddana maraw inaa samaysto haddii lacalla iga soo qabatana dadka inta soo istaago ayaan dhihi doonaa TikTok aan kusoo biiray la socda laakiin hadda waxaan u xaqiijinaysaa in CK ninka la yiraahdo wax TikTok aanu soo lahayn aad iyo aad oo TikTok wax Facebook official page ahna Umar Kirish iyo Laabta Group oo waa hore isticmaali jiray iyo boqol iyo dhowr kun maraya ayaan leeyahay kaana wax ma soo dhigo Facebook kala hadaa aragtaan anigu mali oo marka qaar waxa jira Facebook inta badan dadka laga sameeyo celebrity-ga oo live laga soo dhigo kale muuqaal aro soo sameeyo live laga soo dhigo ama ba qoraal iska soo dhigo leeyahay maanta waxaan u sanay soo duceeyay aniga mali Facebook-na ma isticmaalo TikTok-na ma isticmaalo Instagram iyo YouTube iyo Snapchat aan ku ekaan Instagram-kaaga official-kana waa dabcan 400 iyo mid ka usii dhaafay laga yaabo dad kale sameystaan Instagram kale oo ganta ma wuu jiraa oo marka qaar oo gafta sameyn kara ama qof kale ku xadgudbi kara aad sida daraadeeda sida markaasi CK oo inoo sheegayba waxaa jira dad badan markaasi ay abuurayaan conflict ama waxyaabo markaasi rabshado iyo dagaal oo ka dhex abuuraya inta badanna way dhacdaa qofka celebrity-ga inuu marka qaar in la xaqto ama sidoo kale waxyaabo badan laga buubuuniyo oo ah dacayad loo geliyo magaalada oo ku saabsan in sumcadiisii hoos loo dhigo igaran loo qaada watan ka dhex galay CK markii Turki uu tagayay ama Malaysia uu tagayay ama Greek uu tagayay run ahaantii gurigiisa ma ahayn dadku u tagayayna waa dad Soomaaliya uu ka tagay oo isaga la mid ah oo meelaha jooga bal qiyaas CK dadka isaga uu deegaan ahaan meesha uu degan yahay xuduntiisa ku duugan tahay ee taageero ee jooga oo maanta uu u yimi ma jira qof ku hor istaagi karaan ilaahay ma jirto suuqa waxa soo galay ciyaal caandoon sixin u doon haddana waxay dhahaanba waa goon stage-ka noo balan haddii ilaahay laga noqdo waayahay heestaas waa heesta coming soon oo dabcan dhawaanaad ka daabateen YouTube-ka King CK wayna soo socotaa isagii sidoo kale Alfanaan Sharma Boy
heesta habeenka halkaas lagu soo bandhigi doonaa Aad iyo habeenka aad. wax badanaa soo iyo heese kale iyo weliba heese kaloo badan ma brother kin arash heesa isla soo wadno aad iyo iyadana aad si fiican sharma boy waxaan filayaa heesta ay hees kale way soo socotaa ha hees kale noo soo socota aad iyo aad aad iyo aad iyo heese kaloo badan oo King CK Kenya uu kusoo sameeyey kuwa kale xamar uu ku sameeyey oo habeenkaas sidoo kale halkaa lagu soo bandhigi doono marka laga soo tago sharma boy iyo sidoo kale Kin Arash waxaa jira xidiga kale oo reer muqdisho oo lagu casuumay haddii macnaha oo boorka la iska waay macnaheeda ma aha mid baan eri waxaan eri qof kasta oo fanaan ah oo magaaladan degan aad iyo aad macnaha sababta kin arash iyo sharma boy aan ugu soo daray boorka si fiican waxay ii raaci doonaan insha allah saan rajeynayo beedhabo waxay ii raaci doonaan garoowe waxay ii raaci doonaan kismaayo waxay ka mid yihiin tuwarkayga waa toorkaaga oo kusoo aad wareegaysa gobolada aad dalka aad iyo aad Aad iyo taa ayay dadku uga duwan yihiin fanaaniinta maadaama saaxiibo isku dhow aan nahay taasaa keentay inay ka duwanaadaan Aad iyo aad. laakiin markii ay noqoto showga muqdisho qof kasta oo xitaa halees soo qaaday aad iyo aad. waa showgaagi يا سلام كاني وشوقيني وهبينكي كينج سيكي وهبينكي رير سيكي فاميليز طبعا وحافلا يا هبينكاس طبعا لو ما كان هري دون هذا سيدان كاركا تليفونكا ادك لو سو وعايو دي جي ابلينغ دينع سو دبنتو قابلسني هاي هذا سو وعدنا isaga markaas si wacan ku soo dhameeyay haddii fanaan ha tahay xitaa ha oo talenti aad leedahay amaba aad wax kale talenti u leedahay Aad iyo aad islahayd magaaladan weyn waa kasoo dhex muuqalacsan tahay amaba waa ku haysaa magaalada weyn si fiican habeenkaas jaanis ku yahay haddii ay imaadid guddi waxaa jooga barotokoolka stageka aad iyo aad. iyo qalabka iyo nidaamkaas u soconaya qaabilsan insha allah waqti dheer oo habeenkaas oo dhan aan haysanaa haddaba waxaan jaanis u siin doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo qof allaala qofkii talenti u leh oo raba meesha inuu wax kusoo bandhigo habeenkaas habeenkaa way ka ma faa'iidayso heesiisna u diyaarsan karaa Aad xitaa iyo aad. hadduu yahay xitaa fanaan hadda soo baxaya waxaa jaanis loo siinaya habeenka in bandhigiisa uu sameeyo waa habeenkii reer raabar oo dhan Waka. waa habeenkii rableyda aad iyo aad dabcan waxaa jira fanaaniin da'yar oo freestyle leh oo dhinaca markay imaado heesaha raabka oo iyagana markaasi talentigooda halka habeenka aad ku arki doontaan youtuberada dhammaan reer muqdisho halkaa markay imaadaan aad ku arki doontaan dhinaca baraha bulshada marka la nor c k markii c k la yidhahdo reactionkiisa ku guda jiro magaaladan dhalinyaro fara badan oo cusub oo waxaa jiro reactionkayga run ahaantii aan ku Adeed. garab istaagay si fiican ninka markuu cusub yahay markaa garab istaagtid run ahaantii wax weynaa u qabatay aad weyn waxaa jiro rag fara badan oo meeshaan degan oo markay fanka ku cusbaayeen reactionka markaa ka bixinayay aniga wax kale kama dhigine si fiican waxay ahaayeen un baan sheegay Adeed. ma xaqirin intaana waxaa laga helaa qof qalbi wanaagsan aad iyo habeenka run ahaantii aniga meeshan ka hor showyaan soo qabtay heesa intaan ka yar anoo heesta sida stage loo shita liima sheegaayo oo waqti dheer dadka loola qaato ayadoon iga ahayn fanaaniin badan oo raadinaa waxaan ku leeyahay c k waa kii intuu soo fariisto reaction si qalbi wanaagsan kaaga bixin jiray aad iyo showganna waa showgii haddii aad hami leedahay aad kusoo bandhigi lahayd warka waa xiran yahay aad iyo aad habeenkaas dabcan waxay noqon doontaa habeen loo kala kici doono dhammaantiina markaas waxaad soo gaari doontaan dhinaca iyo halka kugu talagalin ay tahay guryo samo goobtuu ka dhacayo showga waxaan ku wargelinaynaa dad waxaa jira dabcan oo aan ka soo gaari karin ticketka xitaa Aad iyo inay aad. soo gaaraan habeenkaas xitaa albaabka waa lagu waka badaya. iyadana Halkaasaad imaan kartaa. waa muhiimadda ugu weyneed ba run ahaantii aan Aad iyo aad. iloobay haddii ay kugu fog tahay meesha tigidhada aan oo ku laba mar aad bixinayno soo baxdid ay kugu marxaba hotel wadada dabka saaran colow tower haddii ay kaa fog tahay oo laba mar inuu qarash kaa baxa aad diidan tahay habeenka showga albaabka tigidka waa ka helaysaa aad iyo aad. haddii aad awoodid inaa imaadidna waad imaanaysaa aniga abalinga marba kii jaanis ku helo insha allah tigidkaada waa heli doontaa waaya sikay gabagabadaan soo gaarnay sikay ciyaal xamara ahayd Sax. ciyaal xamar yaa ka sii ahayd ciyaal xamar marka la yahay wax runtaa waa xaafadu qofka leeyahay, xaafad- xaafada u shidan new ani reer holwadaag ahaa marka hore aad iyo aad marka dambe reer madiinaan soo noqday laba xaafad aani ii shidan si fiican reer holwadaagna waa soo ahaa marka dambena reer madiina oo ilaa hadda aan ah aad iyo aad laakiin labada xaafadood marka la kala qaado xaafadda ugu badan saameynta ugu badan kugu reebatay saaxiibada ugu badan aad ku yeelatay xaafadda ay ahayd holwadaag wadaag ha because holwadaag waxaa imaadayba aniga oo garguuranaya aad iyo aad waxaana kusoo gaaray run ahaantii teenager aad iyo aad saaxiibada ugu badan meesha ku yeeshay waa meeshaas meesha iskuulkayga dugsiga dhexe dugsiga hoosa kusoo dhameeyey waa meeshaas aad iyo aad
kadib aad madiina usii wareegtay madiinana cumar kirish ay ugu bixiyeen magacaas xaguu kaaga soo raacay iyada naftirkeeda ma shar yaro runaanti asxaab badanaa ku yeeshay magaca cumar kirish meeshuu kusoo baxay waaye si fiican waaya kirish wuxuu kugu baxa laakiin cumar kirish waxaa liigu bixiyaan kuu sheegaa cumar kirish waxay ugu baxday subax nin intaan ka salaamayo manos la yiraahdo play station uu lahaa aan ku madadaalan jiray si fiican ayaa waxaa dhacday inta badanna aniga u joogi jiray maadaama Blacksea aan kasoo qaxnaa Madiina imaanay xaafad cusub ay tahay goobaha lagu madadaalado play station ay ma jirna maadaama meeshaas ku saaxiibnay inta badan xitaa goobtiisa ana u heen jiray waxaa dhacday subax alasay aan quraac u baahanay sax kadib wuxuu dhahay niyow marka isaga xaas uu lahaa quraacda inta badan uu soo qaadi jiray mar ana gurigeyga soo qaadi jiray wuxuu yiri niyow bax quraac noo soo qabo ana sii joogay bas ninka markii wuxuu igu yiri quraac noo soo qaad ima dhihin waxaas iyo waxaas maqaayad xiin waa taqaanaa maleena maqaayad caan Madiina ka ah waa xiin aan tagay ka bacdi ninkii wuxuu ii tiri wuxuu ku soo daray wax cambacaan wax amal uu ku soo daray صح magaca ila qurux badnaaday jagan ku ahaan dhahay cambacaan rabaa cambacaan calowley macal maraqeeda way oo jag ah oo canjeer ku dhex jirto waa soo qaaday calowleydiisa u soo waday play station ka game-ka meesha lagu dheelaya keen xagga markii war ma furin baad xagga la ku furto xaggan saaray ninkaana cayaar xifaaltan laha u socotay asaga naftirkiisa uu dheelay si fiican kadib cabaara meesha ku daanay waa quraacda waa ka daanay quraacda soo qabtaa maagnano baasana markay daado waa fariisanay mugti aadiyad waa fariisatu furay waxaan maxaa waanay oo Christmas-ka noo keenay yirino Christmas-ka tahay maxaa camal ciyaalkii mid kamid ah ila dabagalay marka si fiican magaca la isku feero waay si fiican ila dabagalay adna marka xoog magac waan nacbaneed markaas inta ka salaamaya rumaanta hadda meel isku ma sheegno Umar Kirish 6 saac duurnimo ilaa 7 saac inta laga gaarayo sax magaca feer kala jiid anay asay sax كبعدي مقالة نبدأ عمر كيرش مقالة ما اسكعل قرتها مسكعل قرتها مقعد جاي هذا الصومالي وحي يجعلهم قف منكم مقعد بسده يجعلهم كبعدي مقعي واللي قروح على يقدر واقعت عمر كيرش ساس كوي ما دور كيرش ساس كوي ما ذي dadka qaar isdhahayeen ama Umar Kirish ugu baxay filmkii Kirish oo kale oo hirta corruption waday waa tahay aad buu markaa ugu mahadcelinaa King CK aad baad u mahadsan tahay dhammaan dadka kale ee haddana daawanay waxaan ku wargelinaa fanaan King CK dabcan habeenka inay tahay kooda bisha oo ay soo galayso habeen khamiis jimca ay soo galayso waa maalin khamiis habeen jimca ay soo galayso waa maalin khamiis jimca ay soo galayso dabcan inta badan dadka waa kii jaamacad dhiganay kii iskuul dhiganay kii shaqo lahaa waqti u hayaan insha Allah waxay tahay maalinta markaa uu nasanay holiday-ga habeenka ayaa inoo balanaa iyo guriyo samo lambarka ayaa naga soo wici kartaan nabadgelyo